بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان halkan waxaan ka salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo shacabka gobolka Bari anigoo ah Zakariya Cali Xaaji Saciid hadda waxaan ku sugnahay magaalada Boosaaso saaka video baan duubay wixii aan ka digayna waa dhaceen hase haatee waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo saraakiisha maanta ciidamada hogaaminaya dhamaantoodba xoreynta gobolka Bari oo hadda ku sugan magaalada Boosaaso waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo shacabka gobolka Bari oo ku sugan deegaanada gobolka Bari oo dhan wanaagii iyo soo dhaweyntii ay kala kulmeen ciidamada xoreynta gobolka Bari taas markaan ka gudbo walaalayaal ciidamada xoreynta gobolka Bari maantay waxa ay ku soo wajahanayeen qayb kamid ah dhamaantood ma ahayn guuto kamid ah baa waxay ku soo wajahaneen inay soo gasho magaalada Boosaaso kadibna سعيد عبد الله الدني وحي عيدن u jooga magaalada Boosaaso oo iyo technico ayuu amar wuxuu ku siiyay inay control ku fariistaan ciidamadeenu markay soo gaareen magaalada controlka markay soo gaareen ciidamada Sacid Cabdullaahi Dani ayaa xabad ku bilaabay hase ahaatee ciidamadeenu way ku guuleysteen ciidamada xoreynta gobolka Bari 35 maxaabiis ayay ka qabteen dhowr iyo 10 technicana way ka qabteen صدقي شنتين أو محابيستا أها إن إذا ماذا حرينتو قبل كبري وأقوم هذا علنا سوينا كسان أي سميين وحيكون رجين قضياشي ديجان قبل كبري ويلش أسوح لي باللوجي استمجرته جريا أنكو هينو مهينين إن مال أنكو حرينا مهينين وويلشاني واحد لي باللوجي استمجرته أنا بليف وحن جعل هيدتكو ذي جاينا يكون لابتين إن هسه إذا ماذا حرينتو قبل كبري مركي مجال السوق قلنا حرميه لو دياري iyo meelihii loogu talagalay ayay degeen 22 xarumood ciidan aad u tiro badan buu ahaa ciidan kale ku soo horeeyay magaalada joogana way jirtay magaaladu way xasilloon tahay magaalada Boosaaso shacabka gobolka Bari wax dib ay ku qabaan ciidamadooda iyo dadkoodana ma jiro waxaan rajeynayaa birta iskuulada inay dib u furmaan aniga oo Sakariyana waxaan ugu baaqayaa dhammaan shaqaalihii hore ee u shaqeynayay Sacid Cabdullaahi Dani iyo kuwii ka horeeyay magaalada ku sugan hadday ahaan lahayd kuwa xabsiyada jooga hadday ahaan lahayd kuwa stationada degmada jooga haddayna ahaan lahayd kuwa dekada jooga walaalayaal shaqadiina sidiina u wata cid weerar idinku ah cid idin leenaysa ma jirto ciidamadan waxay u yimaadeen inay dadka xoreeyaan waxay u yimaadeen culayska iyo dhibaatada dadkan deegaanadan ku habsaday inay ka kor qaadaan dhammaantiin waxa la idinka rabaa saas inaad u fahantaan dadku waa dad wada dhashay waa dad ehel iyo qaraabo ah waa dad xigta ah cid leenaysa iyo cid ku duulaysa ma jirto maanta ciidamadu markay soo galeen anigu goobaha ciidamada oo dhan waa tagay run ahaantii maantay nimanka sheeganaya fil garowe ciidan ka hor iimaan kara ciidamada aan arkay iyo hubka ay wataan wallahi oo billahi inuusan u jirin anoo Zakariya Cali Xaaji Saciid maantay Boosaaso dhexdeeda inaan dhaho maamulna kama jiro dawladna kama jirto fil garowe beenba isku sheegeen wallahi billahi nimanka xiniyahooda waay nimanka arkaysan oo magaalada soo galay inta saxarimood degan wiilashaas xiniyahoodan maanta ku hadlaaya awoodoodan ku hadlaaya ma idin la tahay inaan saas u hadli lahaa anoo magaalada Boosaaso jooga waa maya waay birito live video baan soo galayaa goobaha ciidamada oo dhan baan tagayaa ciidamada oo dhan baan idin la hadal siinayaa meel kasta aad joogtaan dadka qurba joogta waxa loo baahan yahay iyo dadka gudaha jooga gaar ahaan waxaan la hadlayaa gabdhaha gobolka Bari walaalayaal waxa loo baahan yahay ciidankiina inaad garab istaagtaan waxa loo baahan yahay wiilasha inaad niyadda u dhistaan inaad cunto karisaan inaad dharkooda dhaqdaan inaad daba istaagtaan baa loo baahan yahay gabar kasta oo gobolka Bari joogta waa inaad ciidamada xoreynta gobolka Bari garab istaagtaan shaaha karisaan sabaayada karisaan cuntada karisaan xarumahooda ugu tagtaan waa wiilashiini waa dadkiini waa ehelkiini dadtii u yimaadeen waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo oo aan halkan ka cadeeyo Cabdiraxmaan Faroole waa oday Soomaaliyeed anigu hadda koor wax badan baan ka hadlay maantana waa sinad wuxuu ku fadhiyaa dawladda federaalka kursiga kaga fadhiyaa sinad waxaan kale oo rabaa inaan sheego ninka la yiraahdo Maxamuud Shido waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo ninka la yiraahdo Abgaalo oo wasiirka maaliyadda ah abgaalo oo wasiirka maaliyadda ah iyo Maxamuud Shido oo wuxuu ku shaqaleeyahay wuxuu hayaana garanaynin iyo Cabdiraxmaan Faroole oo 80 jir ah oo sinad kursiga uu ku fadhiyay soo baneeyay dawladda federaalka ah saddexdaasna dhibaatada aan maleegaysaan idinkoo Aranjaan ah iyo dhibaatada aan maanta deegaanada ku haysaan dadka walaalihiina ay degan yihiin ama majeerteen ha noqdo ama harti ha noqdo Soomaalina waa idin ogtahay annaguna waa idin ognahay waana idin diyaarsannahay dawladda federaalka codsi baan u dirayaa beesha caalamkana codsi baan u dirayaa arrimaha sida ugu dhaqsaha badan waa inuu soo faragashato waa inaynu uga hadasho waayo waxa soo socda in shaaha la kala qaadan waayo cusbada iyo sokorta la kala qaadan waayo
dhibaato weyn baa soo socota mar rabno sidii 1991 dib ugu noqono ilaahayna naguma celiyo waxaan kaloo rabaa walaal inaan ka hadlo dadka qaxootiga ah ee goboladan bari 30 years la soo dhaafay deganaa dadka gobolada kale ka soo guuray oo last 30 years goboladan deganaa walaalayaal deegaankii dibaa joogtaan cidna weerar idinkuma ahan cidina idinkuma soo duuli karto dadka gobolka bari degan baa la matihiin waxaa tihiin shacabka gobolka bari business baa ku haysataa qaxooti baa tahay guri kiraa ku jirtaa guri aad leedahay baa degan tahay cidna kuma imaanayso qof dadka tuugada ah ama maafiyada ah qofkii isku daya inuu dhibaato u geysto businessyada ama meelaha dadka rayidka ay degan yihiin walaal gacan biraa laydinku qabanaya gacan biraa laydinku qabanaya nimanka roondada maanta magaalada wareegaysa caaway nimanka Saciid Cabdullaahi Diri nimanka u shaqeynayay oo jagbootiyasha ay u oolaayeen waxa dhacday jagbootiyasha dhan way ka qaadeen ma joogaan caaway guryahooda ku xiraysan yihiin waxa loo baahan yahay inaan ka wada shaqeyno nabadda xasiloonida iyo wanaagga intaas wixii kale oo dheeraada gadaal ayaan idin kala soo socodsiinayaa shacabka gobolka bari waa inaad garab istaagtaan ciidamada xoreynta gobolka bari saraakiisha hadday noqon lahayd social media hadday noqon lahayd magaalada meel kasta waa inaad garab istaagtaan waa inaad dhahdaan thank you wiilasha waa inaad madaxa ka shumisaan dumarkiina waa inaad guryaha ka soo baxdaan oo sabaayada iyo shaaha karisaan iyo bariiska iyo hilbaariga dhammaantiin waa idin salaamayaan oo Sakariya Cali Xaaji Siciida guul baan idin leeyahay meel kasta joogtaan tan mid la arkay maaha mid la maqlana maaha runtaan idin sheegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh